wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo kaashanaysa ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa maanta kulan ku qabatay magaalada Hargeysa. Kulankaasi ayaa ku saabsanaa doorka saxafiyiinta bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ay ka qaadan karaan taabagelinta siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland. ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire. wax kasta inuu qoro waa la akhriyaa caalamku waa akhriyaa caalamku markuu doonayo inuu ogaado Somaliland wax ka socda cidda marka ugu horeysa uu kala xiriira waxa weeye waa saxaafadda waa baraha internetka joornaaladu waxay qoraan Facebook Twitterka waxyaabaha social media halkaas ay ka akhristaan dadkaas ay sawir ka qaataan xaaladda dhaqaale xaaladda siyaasadeed xaaladda nabadgelyo xaaladda bulsho sawir baa ka soo baxaya marka wax kasto aa qortaanba waxay saameyn ku leeyihiin sida loo arko Somaliland marka halkay lafteeda waxa idin ka saaran xil baa idin ka saaran adigoo dabcan wixii xaqiiqda ka turjumayo sheegaya haddana inaad dareensanaato in maxaan ilaahay waxaad qortay uu saameyn ku yeelanayo maaha waddanka gudihiisa oo kaliya laakiin caalamku ku yeelanayo si laynoo arko waxa kaloo munaasabada ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja Maxamuud Jaamac Xuujo runtii saxaafadda Somaliland waxay u soo dhabar adeegtay muddadii Somaliland jirtay in kaalin muhiim ah ka qaadato waajibaadka dastuuriga ah ee saaran oo dastuurku jiray runtii in qarankan ugu adeegto si hufan inay difaacdo iyo inay horumarkiisa ka shaqeyso muddooyinkaasi maraaxil kala duwan bay saxaafadda Somaliland soo martay turaanturooyin badan iyo kacaquf bay soo martay falilahi alxamdu haddana maanta waxay maraysaa halkii ugu wanaagsaneyd waxaana qaranka ugu adeegtaa runtii door iyo kaalin aan la ilaawi karin oo aan cidina iska indhatiri karin barkhad kaariye iyo Mustafa Aadan oo kamid ah saxafiyiinta bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay ni wax diiday inuu oran waxaan ka doorbiday wax doonayaan jirin saxaafadda hadii leedahay taadi baa jira saxaafadda hadii leedahay xeerkayga lama sameeyo maxay halka u aragtaa halkan waxaan u aragnaa anagu markaan soo koobno daraasaadkan iyo cilmi baaristan dulucdeedu tahay kow bal horta hayba dambeeyaan wax kale oo la sameeyaay xeerka jiray sharciga ah xitaa haduu dhaliilay ilaa imika isaga sharciye hal la geeyo goobihii lagu fulin lahaa ee maxkamadaha ha soo dhaafan istoodhada wasaaradda arrimaha gudaha iyo baarlamaanka taas waa qodob soo jeedinta labaad waa maxay laba in bal shaqada warbaahintu qabato qaladaadka ku gasho laga saaro xeerkan ay qaabto